waxaa jiray buu yidhi laba nin oo mu'min iyo kaafir ah. labadaa nin waxay ku shariikoobeen ay shirkad ku ahaayeen tijaaro iyo ganacsi. lacag badan bay ka heleen, faa'iido badan, lagu tiriyo ilaa 8,000 oo diinaar baa lagu tiriyaa. midkood wuxuu ahaa mid xirfad leh ayuu ahaa, waa ka kaafirka ah. xirfad buu yaqaanay, shaquu yaqaanay. ka kale lacagtiisu u dhiibtay ahayd. waxa uu ku yidhi maalin maalimaha ka mida kii kaafirka ahaa kii muslimka ahaabaa waxa uu ku yidhi waanu kala baxaynaa, lacagtaada waan ku siin, ku shaqayso. mid walba ha ku shaqaysto, mid walba nasiibkiisa ha qaato, mid walba xooggiisa iyo quwaddiisa iyo dhididkiisa wuxuu kasbado ha cuno. sidii bay yeeleen, lacagtii bay kala qaybsadeen. mid walba waxaa ku soo hagaagay 8,000 buu ahaa, mid walba 4,000 oo diinaar ayaa ku soo hagaagay. ninkan xirfada le ee kaafirka ah 1,000 diinaar baa waxa uu ku iibsaday aqal aad iyo aad u weyn oo nin boqor uu lahaa jiray uu ka dhintay, ayuu 1,000 diinaar dhiibay uu ku iibsaday. kadibna wuxuu u yeedhay kii muslimka ahaa, isagoo u faanaya ayuu u yeedhay. waxa uu ku yidhi kayfa tara haadihi daar, daarta sideed u aragtaa? waxaan ku iibsaday 1,000 diinaar baan ku iibsaday. waxa uu yidhi kii muslimka ahaa maa axsanahaa, daartan maxaa ka fiican? kadib markii uu baxay kii muslimka ahaa uu ninkaa ka ag baxay, aqalkiisii buu tegey, uu iska cibaadaystay, salaatuleylku habeenkii u kacay. kadibna 1,000 diinaar buu soo saaray, hortiisuu dhigay. wuxuu yidhi ilaahayow saaxirkay 1,000 diinaar ayuu daar ku iibsaday, daar adduuna oo laga tegayo. anna 1,000 diinaar ayaan rabaa ilaahayow inaan ku iibsado daar aakhiro aan ku iibsado, ilaahayow iga aqbal. subaxdii markuu sare kacay 1,000 diinaar buu qaaday, masaakiinta iyo fuqaraada iyo dadkii baahnaa buu qaybiyey, uu sadaqaystay. bal tu'thiruuna alxayaata addunyaa waalaakhiratu khayrun wa abqaa. ilaahay waxa uu leeyahay daartan adduun ayaad door bidaysaan, daarta aakhira baaqiya. maalimaa wareegay, muddo kadib ninkii kaafirka ahaa ayuu u yeedhay ninkii mu'minka ahaa buu u yeedhay. kaafirkii baa u yeedhaya. waxa uu ku yidhi kaalay. wuu u yimid. waxa uu ku yidhi gabadh baan guursaday, waa kan 1,000 diinaar oo kale ayaan gabadha ku guursaday. gabadh qurux badan, wax taqaana. gabadha quruxda badan waxaan ku guursaday 1,000 diinaar. adu maxaad haysaa buu ku yidhi. wuxuu yidhi anigu 1,000 diinaar baa sadaqaystay, aakhiradayda u qadintay. uu ku dheeldheelay aakhiro, isa soo saar, qiyaamo, waxaan aad sheegaysid waxba kama jiraan buu ku yidhi. noloshan adduunka waa la iska reexaysanayaa, waa maalimo gaaban, ee waxaan hanagu wareerini aakhiro iyo in la soo saari, qiyaamo inuu jiro. waxaasi waa sheeka bereley buu yidhi. iska guurso, iska reexayso nolosha adduunka intan aad nooshahay buu yidhi. casuumad buu u sameeyey, wuu cunteeyey. kadibna ninkii muslimka ahaa mu'minka ahaa wuu iska noqday, gurigiisiibuu ku noqday. habeenkii salaatuleylkii markuu tukanayey baa waxau yidhi ilaahayow ninkii saaxiibkay ahaa ee shariigaygii 1,000 diinaar buu ku guursaday gabadh qurux badan, aniguna ilaahayow 1,000 diinaar ayaan rabaa inaan ku guursado gabadh xooraceyna inaan ku guursado aakhiro, ilaahayow iga aqbal. subaxdii buu sare kacay. kadibna masaakiinta iyo fuqaraada iyo dadka baahan iyo agoonta ayuu u qaybiyey lacagtaas. muddo kadib ninkii kaafirka ahaa ee xirfadda yaqaanay wuxuu iibsaday 2 beerood buu iibsaday. wuxuu ku iibsaday 2,000 oo diinaar buu ku iibsaday. lacagtiisii oo dhan way dhammaatay. ninkii muslimka ahaa buu yeedhay. waxa uu ku yidhi 2 beerood ayaan iibsaday. 2 beerood waxaan ku iibsaday 2,000 ee diinaar ayaan ku iibsaday buu yidhi. waxa uu yidhi
waxaa odhanaya ninkii kaafirka ahaa ayaa odhanaya adiguna waxaad odhan doontaa jannaan iibsaday xuuriciin baan iibsaday ayaad odhan doontaa. sida awgeed warniyahow jannaha nagu wareerine iyo waxaan jirin iyo aakhiraha nagu wareerin ee waxaad yeeshaa adduunkaagan iska reexayso inta aad ku nooshahay wax iibso. ninkii mu'minka ahaa waxa uu sameeyey 2,000 oo diinaar buu soo saaray. waxa uu yidhi ilaahayow saaxiibkay 2,000 ee diinaaree u hadhay 2 beerood buu ku iibsaday, aniguna 2,000 waxaan rabaa inaan ku iibsado beero jannada ah. sidii buu yeelo masaakiinta iyo fuqaraada ayuu qaybiyey. muddo kadib 2 nin way dhinteen, aakhira la tegey. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ka warramayaa, wuxuu ka warramayaa kii mu'minka ahaa oo janno galay oo raaxaysanaya nimcaysanaya wanaag iyo khayr iyo bashbash iyo barwaaqo ku nool, iyo kii kale oo naarta ku jira. ilaahay waxa uu yidhi isaga oo ka warramaya eelu jannaha, ilaahay waxa uu yidhi fa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun. dadkii eelu jannihii way isqaabileen, way iska hor yimaadeen, way wala sheekaysanayaan adduunkii iyo waxay ka sheekaysanayaan wixii jiri jiray. fa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun. barhkood ayay isweydiinayaan, way iswaraysanayaan, way sheekaysanayaan. janno maxaa ka fiican? waa meel ilaahay diyaariyey. mid eelu jannihii ayaa warramaya, waa ninkii mu'minka ahaa ee adduunka soo iibsaday 2 beerood, soo iibsaday xuuriciin, soo shaqaystay, khayr badan soo adeegtay. isagaa warramaya. dadkii kale eelu jannaha ayuu u warramaya. qaala qaa'ilun minhum, mid iyakii ka mid ah hadlo waxa uu yidhi innii kaana lii qariin, adduunka waxaan ku lahaan jiray saaxiib. yaquulu wuxuu igu oran jiray qariinkaasi a innaka la min almusaddiqiin, aduma waxaad tahay dadka rumaysanaya a idaa mitnaa marka aan dhimanno wa kunnaa turaaban ee ciid noqonno a innaa lamadiinuun, ma dib baana loo soo celino arladanaana lagu soo celin. war mayaad maxaa kaasiya? ma marka aan dhimanno een dib u soo noqon oo nala soo celin? ma waxaasaad rumaysan tahay buu igu oran jiray. ninkii xaguu ku dambeeyey talow waa inaan raadiyo. qaala hal antum muttalicuun, bay raacaysaa buu yidhi ninkii han raadinna eh. ibn cabbaas waxa uu yidhi daaqad buu ka furanayaa jannada oo naarta u eegayo. faطalaca fara'aahu, wuxuu ku arkay fii sawaa'i ljaxiim, naarta jaxiima bartankayga isagoo oo ku jira, oo cabaadaya, oo la garaacayo, oo gubanayo, oo qiiqa ka baxaya admalaynay ayuu arkay. naarta jaxiima bartanka isagoo ugu jira. kii mu'minkaa markuu arkay wuu farxay, ilaahay baa soo badbaadiyey. isagoo oo la hadlaya waxa uu yidhi qaala tallaahi, ilaahay baan ku dhaartee, in kidta waxaad u dhowaatay la turdiin, inaad i halaagtid anigana, siaad iigu celcelinaysay inaad ishaki gelisid ayaad u dhowaatay. walowlaa nicmatu rabbii, ilaahay nicmadiisu haddayna i heleelin lakuntu min almuxdariin, aniguna meeshaasaan kula soo geli lahaa, naartaasaan kula soo geli lahaa, xaggaasaan ku baabi'i lahaa. laakiin ilaahay nicmadiisii baa i haleeshay. ilaahay baa igu sugay diintii, ilaahay baa islaamnimadii igu sugay, ilaahay baa i adkaysiiyey. afamaa naxnu bimayitiin, maanta ma nihin wixii maanta dib dambe uma dhimanayno. afamaa naxnu bimayitiin, dib dambe uma dhimanayno ilaa mawtatana aluulaa, dhimashayadii hore mooyaane. wamaa naxnu mana nihin bimucadabiina, qaar la cadaabaya ma nihin. ilaahay waxa uu leeyahay ina haadaa arrinkaasi lahuwa alfawzu alcadiim, waa guusha weyn ee dhabta ah. ilaahay waxa uu leeyahay limithli haada, dadow taas oo kale falyacmal alcaamiluun, dadka shaqaysanaya taasoo kale ha u shaqaystaan. axibatii fillaah, ayadaha waxaan ka fahmaynaa in jannadii iyo naartu ay jiraan oo ilaahay u abuuray, oo jiraan imikada aan joogno. waxaan ka fahmaynaa qofka mu'minkii inuu is-ilaaliyo mar walba. saaxiibka xumi uu ku halaagi, khatar buu ku gelin, aakhiradaadu ku seejini, waa magac xun, waa sharaf xun. sida awgeed ka digtoonow, mar walba qofka xun ka digtoonow. qaybta labaadii waa asxaabul acraaf, waa kuwii derbiga kor taagnaa ee camalkoogii wanaagga iyo xumaantii u sinaaday weeyaan.
ilaahay waxa uu leeyahay wabaynahumaa xijaab, ahlu jannada iyo ahlu naarka xijaab baa u dhexeeya, darbi suur baa u dhexeeya, gidaar weyn baa u dhexeeya. وعلى الأعراف ورقي مركه دربي كرتاقنا رجال يعرفون ويقرنا ينبو إلى هيري كل نمان إلو جنها إيا إلو ناركا انتبا ويقرنا يا ما حيكو قرنا ين بسيماهم أستامهوغا إيا علامدهوغا مركدين عن ملك تأغاني أركان أهل جنها إيا وناقا إيا وجهو وسدو النور إيا نمعدا أي كتشيران خيركا أي كتشيران فيكو قرنا يا إلو ناركا مركي أركان مدوغوغا إيا قراعة إيا عبادك كدعايا ويقرنا يا يعرفون كلا لما ويقرنيا بسيماهم وجياشو ديكو قرنيا. إلهي وحاولي ونادوا ويدواقيان أصحاب الجنة هاي إيغيان ويدواقيان حقا سأجيدين حمرتي هربا أصحاب الجنة حقا ويدواقيان محي لي أن سلام عليكم نبت قريو كركينها أهاتو وانا كركينها أهاتو خير كركينها بدبادة كركينها أهاتو. إلهي وحاولي لم يدخلوها ميقلي وهم يطمعون ويطمعيان inay galaan way geli doonaan way hunguriyeynayaan jannadaasi iyo wanaagaasi inay galaan laakiin may gelin buu Ilaahay leeyahay marka eelu jannaha eegayaan way salaamayaan salaamun calaykum nabadgelyo korkiina ahaad wajigoogii nuurkii iyo udgoonka iyo quruxda iyo nimcada ay ku jiraan bay arkayaan. Ilaahay waxa uu leeyahay wa idaa surifat marka la leexiyo absaaruhum aragoogii wajigoogii baa la leexinayaa تلقاء أصحاب النار لنا أهل النار كانوا اللي حين يوجهوك أجل ليكوا مركي أركان نارتي هي سلسلة ذها هي قراعة هي بيها كل هي عبادك هي واحد لمتيرا أي وحين قالوا ربنا إله يجيو لا تجعلنا هالنجيل مع القوم الظالمين قوم كالظالمين تا معوق إله هالنجدي بليه إلهي وحوليه ونادى ويدواقين مكة أصحاب الأعراف رجال الرقبة والدواقين يعرفونهم أي قرنيان ويقرنيان رقبة قرنيان ونارتا كل حجرة أبو جهل أمية بن خلف أبو لهب عقبة بن رقي ما كجرة رقي وين أي كجرة وقلنا واقيا ويقرنيان يعرفونهم بسيماه على مدهو يكون قرنيان استامهوغا قالوا وحي كل أيهين ما أغنى عنكم جمعكم وحبا إني ميترين وحي أرورين السين مالكي أولادي فربنيني قال لماذا ما أغنى عنكم جمعكم وحبا إني ميترين آوي مالكي فراها بدنا آوي فربنيدي أدكو فانيسين آوي وحي أردن وحبا إني ميقبن وما كنتم تستكبرون يا وحي أدكو وينينيسين أردن وسلك كبرينيسين أردن وحبا إني ميقبن مركاسي إيغيان إيلو جنة وحي ليه إيلو جنة ونم عيسى بلالي رقي باكو جير أي قراعي جيرين أهؤلاء الذين أقسمتم كولي مكوي مين أهين أدكو دارتين لا ينالهم الله برحمة إننا إلهي النعمة يا خير يا جنة يا وناقي إننا إلهي سينه مين أهي كوياتو وحالقوا لي هاي وكواسي الغيري ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون جنة قلع عبسي إني ما سقنا مروق إني ما سقنا وناقي يا خير با إني سقن مكا ودن بيسا أصحاب الأعراف جنة قليان بفضل الله وبرحمته أي جنة كو قليان أحبتي في الله كواحد الصدحات إله إنه قوى الرمي مالين كاسي قصدو ذا إنه قوى الرمي وأصحاب النار أو دواقي أصحاب الجنة محي ليهين إلهي وحاولي ونادى ويدواقين أصحاب النار كوي نار تقالي أصحاب الجنة أي دواقيان ويقبنيان ويعباديان ويرفات سيهين ويسلع سيهين ويوم كداماتك هوق إيا بلان بلية وحولبا إلو جنة هاي دواقيان waxay leeyihiin an afiidu calayna min almaa wa in rubi anoo soo daadiya aw mima razaqakum allah ama waxaa faraha badan oo ilaahay ini siiyey khudrada iyo cuntada iyo wanaagaas wuxuu noo soo daadiya wuxuuna siiya wadna garanaysaan waan baaba'nay waan balaabalnay bal in yar naga naxa kuwii mu'miniinta ee jannada galay waxay ugu jawaabayaan ahli naarkii qaaluu waxay yidhaahdeen ahlu jannihii إن الله إلهي حرمهما لبدا وكحرمي عنتئي عبسبة على الكافرين كوا قالوا بي كوي ويان الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا كوي الدين تود عيار كدكت وغرتهم الحياة الدنيا إن رشا الدنكي أي كديسي فاليوم ما أنت ننساهم وانو إلوبي
kamaa nasuu siday u iloobeen liqaa'a yowmihim haadaa la kulankooga maanta ah ayaan anaguna naarta u iloobaynaa. wamaa kaanuu biaayaatinaa yajxaduun, iyo aayaadka yaga siday uga gaaloobayeene u inkirayeen ayaa naarta lagu tuuri oo naarta lagu iloobi. axibatii fillaah, qisaskaasuu ilaahay inooga warramayaa maalinkaasi qiyaamaha ay sheekaysanayaan ahlu jannihii iyo ahlu naarkii iyo asxaabul acraaf ay sheekaysanayaan. waxaan ka faa'iidaysanaynaa jannada iyo naarta waa la diyaariyey, cadaala ilaahiya ayaa jirta meeshaasi, miisaan ayaa jirta. axibatii fillaah, naxariista ilaahay way ballaadhan tahay. asxaabul acraaf naxariista ilaahay ayaa heleelaysa. ilaahay maalinkaasi addoommadiisa wuxuu ugu naxariisanayaa 99. ilaahay 100 naxariisa ayuu abuuray. mid buu ilaahay adduunkan u soo dejiyey, taasaan iskugu naxariisanaynaa. ilaahay wuxuu reebtay 99 naxariisood, taasuu addoommadiisa maalinka qiyaamaha ugu naxariisanaya subxaanahu wa tacaala. qiso kale ayaa inoo soo socota insha allah. la socod wacan, wajazaakum allahu khayran, وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.